waayahay habeen wanaagsan halkani waa radio Samadoon oo aad kala xiriirtaan mawjada 99.3 habeen walbo xada ayaanu hawada soo galnaa 9 habeenimo ilaa iyo saqda dhexe kusoo dhawaada khiyaarta hawada naga dhageysanaysa si toos ah waxaad naga maqli kartaan FM ta sidii aan hore u sheegay waxaad kaloo naga daawan kartaan ama aad naga dhageysan kartaan shabakada calanka ama www.samadon.com habeenkan caawa waxaanu nasiib u yeelanay in aan ku helno si live aan ugu wareysano wasiir ka tirsan ismaamul goboleedka Galmudug oo isagu booqasho ku jooga guud ahaan dalka Norway markaan ilaahdo magaalada Oslo kaasoo u yimi howlaha inuu ka xaliyo iyo dana gaar oo isagu inoo sheegi doono marka ugu horeysa wasiir Cumar Suuri Cumar Maxamuud Roble kusoo dhaw radio Samadoon waa mahadsantihiin aad baan idinka mahad celinayaa soo dhaweynta aad ugu soo dhaweyseen barnaamijkan radio Samadoon waxaa kaloo mahad celinayaa dhammaan dhageystayaasha barnaamijkan baan u mahad celinayaa sidoo kale waxaan ku leenahay kusoo dhawow gacmo furan iyo walaaltinimo anigoo ku hadlaya magaca maamulka idaacadan iyo guud ahaan shaqaalaha ka shaqeeya ummadda Soomaaliyeed oo degan dalka Norway khaasatan kuwa ku nool magaalada Oslo waxaan ku leeyahay kusoo dhawow dalka Norway jala wasiir booqashadan gaaban ee aad ku timi dalka Norway khaasatan magaalada Oslo waxa ay tahay mid aan wada ogeyn ummadda Soomaaliyeed dalka degan waxa aan jeclaan lahaa su'aasheeda ugu horeysa marka aan u dhigo sidan maxay ku saleysnayd jala wasiir imaashadan dalka Norway iyo Oslo imaashaha aan dalkan Norway wuxuu la xiriiraa imaashihii hore oo madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug mudane Maxamed Axmed Caalin sida la socotid maamulkan dawlad goboleedka Galmudug muddo 4 sano hadda jira waqtigii la asaasay hawlaha inta ugu badan waxaan ka wadnay gudaha dalka hadafka ama ujeedada loo dhisay oo ahayd in deegaamada hadda uu ku magacaaban yahay in loo sameeyo waxa loo yaqaano law and order kala dambeyntii maadaama dalka Soomaaliya muddo badan uu dawlad la'aan ahaa dadaaladii caalamku ay wadeen oo muxuu ahaa in Soomaaliya dawladii Soomaaliya dib loo soo celiyo oo shirar badan caalamku ku qabtay wadamada jaarka ah oo shaqeyn waayeen muxuu ahaa shirarkaas natiijooyinkii ka soo baxay oo ah in dawladda Soomaaliya la soo celiyo oo nabadii iyo amnigii iyo kala dambeyntii dalka dib loogu soo dabaalo maamulka Galmudug waxa loo asaasay marka in bal hoos in wax laga soo bilaabo oo habkan caalamku isticmaalayo oo in madaxweyne la soo dhiso oo madaxweyne ra'iisul wasaare la soo dhiso oo baarlamaan dibadda laga soo dhiso ka bacdi ummadda Soomaaliyeed loo keeno 13 shir baa la qabtay sida la socdo kamana soo bixin natiijadii la rabay sababtuna waxay ahayd in muxuu ahaa kor wixii laga soo dhiso la rabay hoos loo wado anagu waxaan la midnahay marka maamulka Somaliland oo kale ama aan tusaale ka qaadanay maamulka Somaliland ama Puntland oo laga soo dhisay muxuu ahaa waxa loo yaqaan grassroots-ka hoos laga soo dhisay methodka la yiraahdo bottom up approach hoos in laga soo muxuu ahaa dadkii ama dadka localka ah in muxuu ahaa tala laga siiyo sidii loo dhis lahaa maamulkaas hoos baan ka soo dhisnay kor baan u wadnay haddii aan hoos ka soo dhisno maamulkii aan structure-kiisa iyo nidaamkiisii deegaanka uu maamulkan ku magacaabay aan ka soo shaqeynay waxaan u baahanay inaan caalamkana gaarsiino Galmudug maxay tahay haddii ay tahay diasporaha dadka jaaliyadaha dibadda jooga oo Soomaalida ah Galmudug waa maamul Soomaaliyeed weeye magaca deegaankaas ah ku ekaada laakiin waa maamul Soomaali oo dhan ka dhaxeeyo weeyo qof kasto Soomaaliya uu ku dhax noolaan karo oo ku hoos noolaan karo oo muxuu ka mid noqon karo marka inaan caalamka gaarsiino Galmudug waxay tahay message-kaas inaan gaarsiino jaaliyadaha dibaddan inaan gaarsiino buu ujeedada hadafku ahaa message-ka aad gaarsiinaysaan marka waa mid dalka Soomaaliya guud ahaan markii laga heli waayay nabad ay noqotay fikradan ah kala go'go ah in dalka qaybo laga kala dhigo gobollo kala duwan ama ismaamul goboleed sida aan sheegnay si loo helo dawlad dhan marka Soomaaliya ma oran karo kala go'go maxaa yeelay kala go'go waxa weeye dad muxuu kala madax bannaan oo maamul kastaaba uu rabo in muxuu ahaa uu gaar istaago anaga Galmudug hadafkeenu ma aha gaar istaag deegaankaana waagii dawladii hore sida la socotid mudug baa la oran jiray mudug dawladda Soomaaliya inuu qayb ka ahaa gobol ka tirsan buu haatanna waxba kama duwana dawladda federaalka ka tirsan maamulkan ama dawlad goboleedka Galmudug waxay ka tirsan tahay
dowladda federaalka soomaaliyeed hadafkuna ma aha wax goon istaag iyo muxuu ahaa maamul ka baxsan dowladda soomaaliya sidii lagu gaari lahaa dowladda soomaaliya aan ku dhamaystiro sidii lagu gaari lahaa dowladda soomaaliya annagu waxaan u aragnaa in hoos laga soo dhiso maamulkan aan dhisnay oo kasoo bilownay waxaa loo yaqaano village level district level regional level markaas kabacdi in loo gudbo muxuu ahaa wax la yidhaahdo national level oo soomaaliya oo dhan muxuu ahaa maamulku kor uu aado meeshii kor intii laga soo bilaabo hoos loo aadi lahaa waxaad samaysateen wasiiro baarlamaan tiradooda baarlamaanka la sheegay inay yihiin 25 baarlamantari ka dhisan galmudug wasiiradu waa 7 in fact wasiirada dastuurka sar noogu qoran waa 7 baahiyo jira darteed waxaa jira qorshe ah in la kordhiyo golaha wasiirada si barnaamijyada shaqo ee noo yaala loogu helo mas-uuliyiin kale oo ka qayb qaata madaxweyne caalim markuu halka yimi khudbadihiisii ama waxyaalahu ummadda u sheegaya waxaa kamid ahaa ismaamul goboleedkiisu inuu lamid yahay puntland kan somaliland uu ka duwan yahay adigu waxaad ii sheegtay hadda somaliland iyo puntland somaliland waxa ay ku dadaaleysaa inay go'itaan ka madax banaan soomaaliya ay samayso kiino ma uu ku egyahay sida madaxweynaha uu sheegay kan puntland oo kale oo raacsan calanka soomaaliya absolutely waxa weeye anaga dowlad goboleedku waa dowladda federaalka buu ka mid yahay midnimada soomaaliya iyo soomaaliya muxuu ahaa dowladeedii in lasoo celiyo arrintaasaan u aragnaa anagu muqadas maamul hoosoo degaanka aan ka sameynay weeye laakiin waxaan ka tirsannahay soomaaliya mana noogu jirto qorshaha in aan ka madax banaanano soomaaliya xiriirka aad la leedihiin qaybaha kala duwan khaasatan qaybta soomaaliya ee sheekh shariif uu ka taliyo xad intee la eg weeye galmudug ay la leedahay saa la socotay dowladda sheekh shariif waa dowladda federaalka soomaaliya oo loogu talagalay inay muxuu ahaa wadanka intiisa kale ay u taliso awoodda hadda ay leedahayna waad ogtaho waa iska kooban tahay hase yeeshee annagu waa ictiraafsannahay xiriir waa naga dhexeeya waa wada shaqeynaa wada shaqeyn baa naga dhexaysa wanaagsan joogitaankaagan dalka norway iyo magaalada oslo kolley arrimo khaas ah oo ku saabsan howlahaaga adiga anayaa noo sheegay adigu waxaad tahay wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee ismaamul goboleedka galmudug waxa aan ku weydiin lahaa sababaha ama howlaha halkan u timi ummadda soomaaliyeed ee hawada naga dhegaysanaysaa miyaad u sheegi kartaa waa u sheegayaa oo anaga waxa aan u nimid barnaamijkan wax qarsoon maaha waxaan u soconaa waa dan soomaaliyeed baa safarkeenu ku saabsan yahay dan shirkadeed ama private maaha galmudug waa dal soomaaliyeed hawsha aan u soconno safaradeenu ku saabsan tahayna waa dan guud waxaana weeye dowladda norway oo aan u mahad celinayno kaalintay ka qaadato roolkay ka qaadato arrimaha soomaaliya haddii ay tahay dhinaca samafalka haddii ay tahay dhinaca muxuu ahaa siyaasadda iyo wixii lamida oo aan u mahad celinayno in aan maxaanku rahdaa aan haddana haddii alla ku rooyahay barnaamijyadaas sidii loo horumarin lahaa oo iskaashiga dalkan norway sidii loo horumarin lahaa xiriirada hore jiray iyo waxqabadkii hore jiray in lasii kordhiyo arrimahaas baan u nimid inaan kala hadalno dowladda sidoo kale waxaan u nimid haddee shacabka soomaaliya laftigooda inaan la hadalno oo gaarsiino oo si gaara iyo si guud midaan laftigeeda idaacaddu waa fursad weeye fursad waxa weeye aada ku mahadsan tihiin adinka iyo intana dhegaysanayso oo aan u sheegano galmudug inay tahay dal soomaaliyeed waddan ummad soomaaliyeed meel muxuu